maanta oo bisha November ay tahay 29 sanadka 2019 waxaa magaalada Addis Ababa goor dhaweyd ku soo dhamaaday shirweynihii kalfadhigii IGAD madaxda IGAD 13aad shirweynahaas wuxuu ahaa mid ama kalfadhigaas wuxuu ahaa mid muddo la sugayay muddo ka badan 10 sano aan qabsoomin maanta ayuu qabsoomay waxaa ka qayb galay madaxweynayaasha dalalka IGAD iyo ra'iisul wasaarayaashooda oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Uganda Yoweri Museveni madaxweynaha South Sudan Salva Kiir wasiirka arrimaha dibadda oo Kenya matalaysay iyo ra'iisul wasaaraha Sudan Abdalla Hamdok shirkaasi waxa ajandihiisu ahaa maartay in la go'aamiyo qaabka cusub ee dhismaha urur dhismeedka IGAD oo la ogolaaday iyo in xeer cusub oo ay leedahay IGAD la sameeyo kaasoo dib loo dhigay wada hadallo dheeraada u baahday waxaa kaloo meesha looga hadlayay in gudoominta shirka iyadana la doorto taasoo awal ay ahayd Ethiopia 10 sano la soo dhaafay laakiin maanta la go'aansaday madaxdu isku raaceen in gudoonka shirka IGAD ay la wareegaan dalka Sudan shirkaasi guul buu ku soo dhamaaday